madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo maanta ka qayb galay munaasabad lagu xuseeyay maalinta haweenka adduunka oo lagu qabtay hoolka shaqaalaha magaalada Hargeysa ayaa si adag uga hadlay faragelinta qaawan ay ku hayso dawladda Soomaaliya Somaliland isla markaana ku tilmaamay inay soo faragelisay dawladda Soomaaliya heshiisyada u dhaxeeya Somaliland iyo shirkadda DDB World ee maalgelinaysa dekedda Berbera waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu fariin adag u diray dawladda Soomaaliya walaalayaal maalmahanba waxa ka socday geeska Afrika xiisadda waxa abuuray dawladda Muqdisho ka dhis heshiiskii ay Soomaaliland la gashay dawladda Imaaraadka iyo Itoobiya ee dhaqaale waxa ka soo baxay arrintii huursanay dadka inta badan hore ee ahaa dawladda Muqdisho ka dhisan laga soo bilaabay cadde ilaa taa maanta farmaajo caqliga iyo falsafada ay qabaan iyo halka ay sida u hedisoonayaan iyo Somaliland halka ay joogto iyo sida la isu maandhaafsanahay iyo sida aan war la isugu harin ka sarreeyay arrinka duugaa jiray iyo waxa ka xigaalay xumaana inay weli isu dhaweyn oo la ismaandhaafsanahay oo warba la isu harin waxa inoo sheegay wiilka dhalinyarada wiijiyanka ee ka taliya ama ra'iisul wasaare wixii hore shir dowladda wala wiil yarbata kasta wada hadashay ayaa leeyahay arrinta maanta aad ka ashay waxa ka bilaabantay oo cadaawadda maanta aad muujisay iyo waxaad ku dhawaaqday ee tiri Soomaaliland ma jirto anaa xukuma Berbera anaa ka taliya heshiiska laga geli karo alla wuxuu beeshay alla wuxuu